بسم الله الرحمن الرحيم. بعد السلام waxaan joognaa saldhigga Shabeel dhinaca galmudug ku yaala oo ay ka howlgalayaan ciidanka wada jirka ee labada maamul oo ay ku xiran yihiin maxaabiis tuhmo al-shabaab loo xiray iyo kuwa kale oo sharwadayaal ah iyaga laftooda shida ku jiray. dhawaanaha waxa halkan ka socday howlgallo si wada jira ay u wada wadaan labada maamul ciidamadooda booliska iyo kuwa militariga intaba. haddaan ka warbixino howlgalkii ugu dambeeyay oo dhacay xalay iyo kii ka sii horeeyay oo isaga warkiisa la hayay. xalay ciidanka booliska isku dhafka iyo kaashanaya ciidamada danab iyo BSF waxay ka howlgaleen soon loo yaqaan soonka cagaaran oo aan wax maamul ah ka howlgali jirin oo ay ku dhuumaalaysanayeen kooxaha argagixisada iyo kuwa khamrida ka ganacsada iyo kuwa hubka kala dulaala iyo kuwa kontrabaanka ka shaqeeya. dhulkaas oo aan innaba ha yaraatee wax dawladda ka howlgelin muddo 20 sano ah ama ka sii badanba. waa horumar weyn oo ciidamadan isku dhafka ah ay gaareen oo dad bulshada reer Gaalkacyo ay gaadhay oo ummadda Soomaaliyeed ay gaadhay labada maamul oo mataanahana ay gaareen. insha Allah ta'ala waxaan sii wadi doonaa howlgallada noocaana waxaan iska kaashan doonaa wax kasta oo amniga la xiriira sida colaadaha beelaha dhexmara argagixisada kooxaha maandooriyaha iyo wax kasta oo dib ummadda ku haya. waxaanu sidaan hore u sheegaynaa cadawgeena inaan u midownay inaanu hal farnahay inaanu meel uga soo wada jeedno in halka kan oo maamulka galmudug ka tirsan ay labada ciidan iyagoo isku kalsoon ay ka hayaan shaqo saraakiisha baaristu wax ku wada baarayaan hal maxkamada la geyn doono dadkaas dadka oo dhan ay ku kalsoonaadeen arrintaas. wabillahi tawfiiq. bismillaahir rahmaanir rahiim. dhammaan waxaan salaamayaa mas'uuliyiinta magac kasta ay ku joogaan. salaanka bacdi howlgalkii dhacay 7 bisha 6 oo ay wada fuliyeen howlgalkaas ciidamada wada jirka Puntland ciidanka booliska ee Puntland ciidanka booliska galmudug ciidanka BSF iyo ciidanka danab waxaan noolahaa howlgalkaas waxaan noolahaa muhiimad weyn wada jirka iyo wada shaqaynta magaalada Gaalkacyo waxaan noolahaa muhiimad weyn waxaan ka gaarnay horumar howlgal in badan qorsheynay buu ahaa waan ka tashanay ilaa meesha lagu qabanayo sida loola tacaamulayo dadka la soo qabto iyo sida anagu isku kaashanayno howlgal in badan ka fikiraynay buu ahaa waxaan noogu dhacay sidii aan ugu talagalnay buu noogu dhacay waan ku sii wadi doonaa waan ka sii horumarin doonaa sida hadda waan ka sii horumarin doonaa insha Allah maxaabiista halkan aan keenay waxay ahayd 50 qof aan ka shakinay baaris baan ku sameynay dad xalay baan sii deynay oo aan isla garanay inay samayn dad meesha lagu sii hayn karo dadna saakay baan sii deynay baaristii oo dabaanad baa lagu sii daayay 13 qof baa hadda 16 qof baa hadda meesha lagu hayaa baarista ku socota waxa baarayaasha labada dhinac ee Puntland iyo galmudug. ilaahay baa mahadle horumar laga gaaray way Gaalkacyo insha Allah ciidamada qalabka sida hadaan nahay labada maamul waa sii wadi doonaa meel kasta waa wada tagi doonaa insha Allah hadii la yiraahdo aad baa u mahadsantahay.